subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan nin hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay dadka masiixiyiinta ahi ku cibaadaystaan oo kiniisada oo ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka axadii shalay ninka weerarkan soo qaaday ayaa laba qof ku dilay goobta sida ay wararku sheegayaan qof hubaysan oo goobta joogay ayaa isagiina toogasho ku dilay sidoo kalena dad dhaawac ah ayaa la geeyay isbitaalka Sahre Ciidlanur ayaa arrimahaasi ka wareysatay jaamac ayaan leefayte oo kamid ah Soomaalida ku nool gobolka Texas saaka abaar 15 daqiiqo markay ahayd kelinka dambe oo maalin axad ah oo dadkan diinaha haysta ay badan kaniisadaha aadaan ayaa meel kaniisada la weeraray oo ku taala galbeedka magaalada Fort Worth la yiraahdo meesha magaceeda waxa la yiraahdaa White Settlement waa meel kaniisada ahayd nin hubaysan ayaa galay dadkii oo hawlahoodii ku gudanaya halkaas deedan rasaas ku furay marka wararku waxay sheegayaan qof meesha joogay oo isna hubaysnaa ayaa ninkii wax soo weeraray ee dilay isaguna wuxuu galaaftay laba qof oo kale oo qof isaga uu ninka wax dilay ay ku wada dhinteen meesha qof kale xaaladiisa in kale la tacaalay inkastoo dad kale dhaawac soo gaaray oo markii la jiray ku dhaawacmay dad waayeel u badan ay jiraan laakiin boolisku sheegeen in isbitaalka laga saaray oo helidii ay aadeen saas wuxuu dhacay waan gartay marka isagiina waa la dilay markii dambe oo dad meesha joogay oo hubaysnaa ayaa isagana joogtay meesha laakiin ilaa iyo hadda Sahre boolisku wax information qofka jasiirada uu ahaa cadaan madow daadiisa wax noocaas ma sheegin laakiin qof nina inuu ahaa un bay sheegeen qofka meesha weerar waan gartay ma la sheegay sababta ka dambeysay inuu weerarkaasi geysto ama ma jirtay cid taqaanay inuu meesha hore u iman jiray iyo in kale laakiin waxa la sheegay in inta badan kaniisadaha ay qadeen cabsi ah in weerar dhacaan oo sare waxa xasuusta in gobolka Texas dhimasho badan ay ka dhacday 2017 bishii November 26 qof lagu dilay meel kaniisada oo isla gobolka la weeraray 20 qof lagu dhaawacay marka had iyo jeer meelaha lagu cibaadeysto ama muslimka ha ahaadeen ama dadka diinaha kale muslimka haysta ha ahaadeen aad bay cabsi u qabaan oo inta badan xitaa dad hubeysan baa kaniisada jooga oo aan ku fara ama banaanka taagan ilaalinaya cabsi noocaas way jirtay laakiin cabsi dhow oo maanta waxa dhacayo oo kala ama qofkana message jirin saaray waan gartay jaamac marka dhawaan sidan wararka ku maqalnay waxa jiray weeraro loo geystay masaajida ku yaala magaalada degantahay Austin baliyadana nooga waran sidee wax loo yeelay masaajidadaasi wallahi Sahray masaajidka kaliya ma masaajidka ku yaala magaalada Houston la yiraahdo saas oo kala dad loo qabtay oo cid kasta waa la garan waayay laakiin magaalada iyada dad laba qabadsiina waxa dad laga shakiyay ayaa kameradan kamerada ee masaajidka leeyahay laga arka dhowr qof loo malaynayo inuu gaas ku shubay darbiga masaajidka ka bacdina uu wax ku qorqoray hadalana cayba marka qolada masaajidka anigu masaajidka aad ugu dhoweeyay waan tagaa oo waxay info gareeyeen booliska dadna maalmaha jimcaha oo kale oo dadku aad u yimaadaan masaajidka booliska noo yimaadeen waadi marka cabsi noocaas way jirtaa had iyo jeer aad iyo aad baa loo waliba maanta oo kale cabsidu ka soo weyntahay hadii qofka wax weeraray ama muslim ahaan lahaa ama qof kale ahaan lahaa cabsi badan baa inta badan muslimka soo weerto waa sheeko inta badan isku xiran marka meelaha kaniisada la galo ansaadka la galo had iyo jeer dadka community-ga labada dhinacba way welwelaan had iyo jeer gudoomiyaha gobolka uu ka hadlay wasaxaafada soo saaray uu tilmaamay falfolson oo nacayb isalka ku haya xeeraryaha isagu qudus waa ka hadlay oo dhamaan wax soo saaran wasaxaafadeed bartooda Twitter-ka arrinta kaga hadlay kaasi waxa uu ahaa jaamac ayaan leefayte oo kamid ah Soomaalida ku nool gobolka Texas wuxuu u waramayay Sahre Ciidlanur